السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي wanaagsan meel kasta joogtaan kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijkii taxanaha caafimaadka. sidee u noqon kartaa qof muuqaal ahaan da'diisa aad uga yar? 5 qodob oo ka caawin doona haddii aad joogtaysid inaad noqotid qof muuqaalkiisa iyo da'diisa ay kala yar yihiin. qodobka koowaad, waxaad maalin kasta cabaysaa 2 ama 3 litir oo biyo ah, ama se hadaa si kale u dhahno salaad kasta oo aad tukatid, marka aad tukatid waxaad cabaysaa 2 galaas oo biyo ah. tusaale ahaan salaada subax markaad tukatid waxaad cabaysaa 2 galaas oo biyo ah, salaada duhur 2 galaas oo biyo ah, salaada casir 2 galaas oo biyo ah. sidaas ayaad ku wadaysaa. qodobka labaad, waxaad seexanaysaa habeenkii inta u dhaxaysa 3 saac habeenimo ilaa 4 saac habeenimo. haddii aad joogtaysid waqtigaasi, xubin kasta oo jirkaaga ka mid ah waxaa ka muuqanaya nuur iyo weliba firfircooni. hurdadu waxay jirka siisaa nasniino markaasi ku filan, waa haddii qofka uu seexdo saacado ku filan. qodobka saddexaad, gebi ahaanba waxaad joojisaa wax kasta oo leh sonkor ama se wax kasta oo ka samaysan sonkor. haddii aadan hal maalin joojin karin sonkorta iyo waxyaabaha sonkorta ka samaysan, waxaad samayn kartaa inaad tartiib maalinba aad qayb joojisid. haddii aad isticmaali jirtay waxyaabaha ka samaysan sonkorta maalintii 3 jeer ama 4 jeer, waxaad isku daydaa marka hore inaad 2 jeer ka dhigatid, haddana steebka ku xiga inaad 2 mar ama 3 mar ama 1 mar, hadba intii aad isticmaali jirtay in ka yar inaad isticmaashid si aad u yareyso ama se ula qabsato inaad markad ugu dambeysa sonkor la-aan aad joogi kartid ama se wax walba aad sonkor la-aan ku isticmaali kartid. qodobka afaraad, cuntada aad cunayso ha noqoto cunooyinka lagu kariyo biyaha. taas bedelkeeda waa inaad joojisaa ama yareysaa cunooyinka lagu kariyo saliida ama se cunooyinka ka samaysan saliida. waxaad joogtaysaa cunooyinka lagu kariyo biyaha oo ay ka mid noqon karto digirta, qamadiga, salbukada iyo xataa waxa soo hoosgeli kartaa soorta. qodobka 5aad ee ka caawinaya inaad noqotid qof muuqaalkiisa iyo da'diisa ay kala yar yihiin waa inaad maalin kasta aad samaysaa socod. weliba socodkaasi waa inuu noqdaa mid maalinle ah oo joogto ah. ugu yaraan socodkaas waxaad soconaysaa 30 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo inta u dhaxaysa. socodku wuxuu si tartiib ah u furfuraa xididada dhiigga iyo weliba maqaarka jirka.